mustaqbalkaaga wax soo socdo waxay gacanta ugu jirtaa Allah subhanahu wa ta'ala. Adiga iyo aniga ma ogin waxa biri dhacayo, laakiin waxa ognahay aan yaqiinsanahay waxay tahay loo baahan inaan yaqiinsanaano in waxa Allah subhanahu wa ta'ala inoo qorayo ay tahay midda ugu khayrka badan. walaalayaal, ibn aadanka wuu degdeg badan yahay. ibn aadanka yani waxyaalaha qaarkood ku dhacaya markasta wuxuu u maleeyaa mararka qaarkood inay dhibaato u tahay, laakiin waxaa laga yaabaa walaalayaal culayska adig kugu dhacayo ama culayska da ku haysto inay berita ka dambeyso faraj iyo waxa aadan filanaynin. subhanahu wa ta'ala suurta Yusuf ayuu tusaale nooga bixiyay. Nabi Yusuf alayhi salaam waaliis ayaa dhibsaday, magaalada ayay ka kaxeeyeen, ceel bay ku rideen, keligii ayuu noqday, qof ka soo bixiya male, ilaahay baa badbaadiyey. kadib waxaa la geeyey guri boqortooye ah, haddana haweenidii ayaa damacday, xumaan ayaa magaalada lagu faafiyey, xabsi ayaa la geliyey, waa la dulmiyey. halahaa sano 13 sano ugu yaraan wuxuu ku jiray xabsi, si dulmi ayuu ugu jiray. laakiin Allah subhanahu wa ta'ala uu dambeyntii wuxuu ugu bedelay waxay inuu noqdo magaalada Masar khazaa'inteeda maamulkeeda inuu asiga gacantiisa ay ugu jirto. su'aalan ku weydiin, haddii uusan dhibaatooyinkaasna uu soo mari lahayn ma gaari lahaa boqortinimada? waxaa dhehaysaa may. lidalik walaalayaal, waxaa dhici karta mararka qaarkood inaan anag waxaan u malayn inay sharci noo tahay, laakiin ilaahi subxaanahu wa ta'ala xikmadiisa ma ogid waxa ka dambeeya. usug ha degdegin, fa inna maca alcusri yusra. culays kasto walaalayaal, culays kasto sudon ha ahaato u culays badnaado, waxa ka dambeeya ku kalsoonaaw Allah subxaanahu wa ta'ala. ku kalsoonaaw Allah subxaanahu wa ta'ala. ilaahi subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku qadaraya markasta waxay tahay wax khayr ku ah. haddii ibn aadam la doorsiin lahaa يعني wax asig noloshii suuq inuu ka dhigto iyo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaray, wuxuu dooran lahaa qadarta Ilaahay subhanahu wa ta'ala. ku kalsoonaa Rabbi subhanahu wa ta'ala.